Kasimbasa ee magaalada Istanbul 16 Febraayo 1954 waxa uu carruurnimadii ku qaatay magaalada Rize halkaas oo aabiis ka mid ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر مركز برنامجكم تاريخ الدنيا ما أنتم حنكون أقدونا تاريخ مدحونا ذاك تركيا رجب طيب أردوغان هذه تمرك أولى نصوب وقصد فضلا سبسكرايب صار مهسنت مدحونا رجب طيب أردوغان وحول الهان كسر كذا مجال الريسة وعاصمة جول الريسة برجة تركيا وحول كل شيء حافظ كسيمباسا مجال إسطنبول 16 فبراير 1954 وحول عرّنيس كوكاتي مجال الريسة halkaas oo aabiis ka mid ahaa shaqaale ilaalada xeebaha 13 jirkiisa ay qoyskiisa dib ugu salaabteen magaalada Istanbul maadaama ka soo jeedo qoys sabool ah waxa uu rajaday Erdogan bilaabay inuu sharaabka leenta iyo sinta ku iibiyo wadooyinka magaalada Istanbul waxa waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe ku qaatay dugsiga Kasimbasa Bayla Primary School sanadkii 1964 wuxuuna dugsiga sare ka qalin jabiyay dugsiga sare إمام هاتب إسكول سنة كوسا بقول لحين سجالكي رجع ضيب أردوغان وحول شهادين كهلي كرسيين وحبرشة وحول الدبلومات قاعتي دوسيق السر أيوب وحول سنة كوسا وضعات أفرتي باللاوي تعاد مرمى يونيفرسيتي وحول كقلن تبي سنة كوسا وضعات سجالكي كل درجة علىها علم جماملك تعاد مرمى يونيفرسيتي كنت على مجال إسطنبول وحول حيون كنقضي أوركا أرضية تركيا National Turkish Student Association waxa uu mar soo noqday duqa magaalada Istanbul sanadkii 1994 Istanbul horumar ayuu gaarsiiyay inkastoo dadka cilmaaniyiinta ay ku dhaliileen markii uu xarimay qamriga sidoo kale waxa lagu amaanay in aanu ahayn nin musuqmaasuq yaqaan arintaas oo uu ku soo jiitay dad badan oo reer Turki ah oo diinta jecel waxa uu amray in qamaar gabdhuhu u xiran karaan goobaha shaqada oo markii hore mamnuuc ahayd oo dad cilmaaniyiintu mamnuuceen waxa sidoo kale uu amray in iskuulada lagu barto Quraanka taas oo aan horay u jirin rajaday Erdogan 10 bil oo xarig ah ayaa lagu xukumay 1997 kadib markii uu ku gabay micnihiisu ahaa masjidku waa dhufeyskeena muuminiintu waa ciidankeena minarda masaajidku waa warmaha iyaga inkastoo 4 bil uu xirnaa la sii daayay gabaygaas ayaa cilmaaniyiintu u arkeen mid ka soo horjeeda hadafkooda madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan sanadkii 2001 xisbiga cadaaladda iyo horumarinta AK Party wuxuuna xisbigaas u horseeday guushii uu ka gaaray doorashooyinka ka dhacay dalkaasi sanadkii 2002 2007 iyo 2011 Rajab Tayyip Erdogan oo muddo 15 sano ku dhex jiray siyaasadda waxa uu xilka ra'iisul wasaaraha hayay muddadii u dhaxaysay 2003 ilaa 2014 madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan inta uusan siyaasadda soo dhaxgelin waxa uu ahaa ciyaartoy ka tirsan naadiga kubadda cagta ee Kasimbasa Sport Club oo la aasaasay sanadkii 1921 kana mid ahayd kooxaha heerka koowaad ee dalkaas naadiga uu Erdogan ka tirsanaa waxay ka dhisan tahay xaafadda Biyuglo ee magaalada labaad ugu weyn dalkaasi ee Istanbul madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan wuxuu masraxa siyaasadda ka soo muuqday markii asaga iyo Abdullah Gül aasaaseen xisbiga Islaamiga ah ee AK Party sanadkii 2001 xisbiga AK Party wuxuu ku guuleystay doorashooyinkii dhacay 2002 iyadoo Abdullah Gül ku guuleystay xilka ra'iisul wasaaraha wuxuuna markii daba noqday madaxweynaha Turkiga tilaabadaasi waxay u go'aan xartay inuu Rajab Tayyip Erdogan qabto xilka ra'iisul wasaaraha bishii Maarso sanadkii 2003 ilaa 2014 Erdogan waxa isla sanadkaasi loo doortay madaxweynaha Turkiga wuxuuna mar raba xilkaas ku guuleystay doorashooyinkii dhacay 24 Juun sanadkii 2018 waxa uu bishii July 15keedii sanadkii 2016 ka badbaaday afgambi dhicisoobay oo saraakiil military ka tirsan ku doonayeen in xilka kaga tuuraan madaxweyne Erdogan bas shacabka Turkiga ayaa si xog u difaacay madaxweyne Erdogan isku day afgambigaasi waxa lagu dilay dad ka badan 200 oo qof ayadoo tir intaas ka badan ku dhaawacmeen dhismooyin dawladeed ayaa la burburiyay waxaan hawada laga duqeeyay qasriga madaxtooyada iyo dhismaha baarlamaanka dalkaasi
waxaa afgembiga kadib la xiray ugu yaraan 40,000 oo qof oo iskugu jiraan 10,000 oo askari, 15,000 oo shaqaale caafimaad ah, 2,745 oo garsoore maxkamadeed ah, iyadoo 160,000 oo shaqaale ah shaqada dowladda laga ceeriyay. Dowladda Turkiga waxay shaqaalkaasi ku eedeysay Sheekh Fethullah Gulen oo musaafir ugu nool dalka Mareykanka, balse Gulen waxa uu beeniyay inuu ku lug leeyahay afgembigaas. Dowladda Turkiga waxay bilowday olga ilaa haat socda oo laga soo horjeedo shabakadda Fethullah Gulen oo si aad ah ugu dhex milantay militariga dalkaas. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa dalkiisa gaarsiiyay dalka 16aad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka, halka markii hore uu jooga dalka 111aad. Doorashada 2018 waxay ka duuneed doorashooyinkii hore, waxayna horseeday in markii ugu horeysay lagu doortay madaxweyne fulneed oo awood leh, waxayna Turkiga ka guureen nidaamkii hore ee uu ra'iisul ahaa mas'uulka fulneed ee dowladda. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waa 64 jir, waana xaasle, aabbo u ah 4 carruur ah, 2 wiil iyo 2 gabar. waxa uu awood u yahay ilmaha ay dhaleen ubadkiisa. Allah u naxariistay Abiy Ahmed Erdogan waxa uu geeriyooday sanadkii 1988 halka hooyadiis Tansile ku geeriyootay 88 sanadkii 2011. halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa taariikhdii koobneed ee ku saabsaneed madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan.